رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك وأصال سادة النبي ينوال أمرك وأصال صدى النبي ينوال أمرك وأصال محمد أحمد هدي النبي ومن دينه دين أهل الشرك قد درس الرب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك وأصال سادة النبي ينوال أمرك وأصال صدى النبي ينوال أمرك وأصال يا السحعة على ود الحبيب العصا سجد للنار الهدى من نوره قبصا يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك وأصال سادة النبي ينوال أمرك وأصال صدى النبي ينوال أمرك وأصال رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك وأصال سادة النبي ينوال أمرك وأصال صدى النبي ينوال أمرك وأصال ورد الدار في وضع أبده أبدا عرقات بك يشفع من دنا وأصال يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك وأصال سادة النبي ينوال أمرك وأصال صدى النبي ينوال أمرك وأصال وقل للآن للحمل مكي من مضر هواك بفؤاد السادة في قرصان يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك وأصال سادة النبي ينوال أمرك وأصال صدى النبي ينوال أمرك وأصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن إدلانتي بدا وضيال ميل كستوات جوجتان iyo goob kasta aad ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka hana nasiibkaaga oo ah barnaamij waqtiga nasiib ah isla markaana si leef ah ugu doona page-ka oo ah barnaamijku daawadayaal wuxuu hawada soo galay saacadu markay ahayd 9 oo goow ah waxaanu ku jiri doonaa qadar 40 daqiiqo haddii Allah hawada la ogolaado waxaan idinka codsanaynaa daawadayaal inta barnaamijka si leef ah u daawanaysa inay share gareyso intiina soo wici karaysa iyo intii nasiibkooda tijaabin karaysa inay barnaamijka halka naga soo wacaan isla markaana ay tijaabiyaan nasiibkooda barnaamijka daawadayaal oo barnaamij waqtiga nasiib ah sidaan horeba idinku sheegay waxaana lagu guuleysan doonaa lacag cadadkeedu gaarayo $30 ayna ugu yartahay $3 barnaamijka waxa la qabsan doonaa 36 lambar oo ah 1 ilaa 36 1 ilaa 36 waxaad ka qabsan doontaa 6 kamida waxaana ay kugu dhici doonaan godadka halka idinka muuqda daawadayaal waxaa si toos ah khadka ugu jira daawadihii ugu horeeyay barnaamijka soo waca isaga ayaynu barnaamijka iyo nasiibkiisaba tijaabin doonaa Hello السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso waxaad si toos ah ugu jirtaa barnaamijka hana nasiibkaaga walaal waa ku dhawahay barnaamijka waxaan ka soo hadlayaa magaalada Burco magacayga waxaa la yiraahdaa Faysal Naloof Faysal soo dhawow barnaamijka 4 shuruudood ayaa ka horeeya inaad nasiibka qabsato 4 shuruudood haddii aan kuu sheego inaad buraanburto inaad gabaydo inaad heesto iyo inaad ka sheekayso sheeko gaaban sheeko gaaban oo qosol badan ma ka sheekanaya walaal haye walaal inoo bilow sheekadu waxa ka dhacday sidan bay u dhacday ma garanaysaa haye
reer xaasabay ahaayeen ma garanaysaa haye dabeetana ninkiiba gabadhiisii dhagax maalin kaga dhacay xagga madaxa dhagax baa ku dhacay gabadhiiba dhagax ku dhuftay haye dabeetana gabadhii nabar baa soo gaadhay walaal nabar aad u weyn baa soo gaadhay haye gabadhii waxay ku tashatay inay ka aasato ninkeedii oo dee dhagaxii ku dhuftay dee ay mid lamida ku dhufato haye dabeetana adigu arrinka ugu suurto gelin dabeetana ninkii markuu israada gabadhiisi la sheekaysaba ama uu kelmad weydiiyaba dhagaxii aad ugu dhufato bay ka hor keentaa ma garanaysaa waan gartay tusaale ahaan imika wuxuu ku yidhahdaa nee hebel horta waa imsi jiro masi tiraahdaa beriga dhagaxaa ugu dhufatay wuxuu jiray 3 jir haye dabeetana ninkii wuu yaaba haye dabeetana gabadhii isugu adkaysan waayo dee kule namarkaad ugu dhufato namarkaad ugu dhufato ka qoomamay ma garanaysaa waa gartay ninkii dabeetana wuxuu yidhi maalintii dambe uu yidhi naa walaal iyagoo wada sheekaysanaya bal horta sheekadeenna ka saar dhagaxii berigay ku dhacayo dhaawicii soo gaadho ka bilow sheekada waxaan ku weydiiyo haye dabeetana gabadha halkii bay qososhay dabeetana masii tiri waayahey wixii dambe insha allah saasaan kula socodsiinaya waa gartay dewaka sheekada halkaasi ku dhamaatay aad baad u mahadsan tahay kolley 4 shuruudood mid ka mid ayaad buuxisay haatan waxaan ku gudbin doonaa nasiibka lambaradaad qabsan doontaa waxay yihiin 1 ilaa 6 iyo 30 6 ka mid ayaad qabsan doontaa iyo lambar 7 oo dheeraad ah ayo way 6 lambar oo qabsaday lambar dheeraad ah marka imka 6 lambar baynu ka bilaabaynaa 6 lambar aad qabsanayso waxaan qabsanayaa walaal lambarka 20aad lambar 20 ilaa 6 iyo 20 21 22 23 24 5 iyo 20 6 iyo 20 ilaa 20 ilaa 5 iyo 20 ayay 6 lambar kuugu buuxdaa walaalo waxaad qabsan doontaa sidaas la mid lambar 7 oo ku noqon doona lambarka lacagta ugu faraha badan ku heli doonto marka lambarkaasina labadeena ayuu naga dhaxeeyaa insha Allah maskaxdana waad ku haysanaysaa intaas ku haysanay ma lambar 7 baa jiro aad qabsanaysaa lambar 7 baan qabsadaa lambarkaas wuxuu noqonayaa wala lambarkaasi 21 ka dhig 21 ka wad haysanaysaa 6daadi lambar halkaan ka doortaa miya may 6daadi lambar laba kamid ah godka galay si hal ayaad ku leedahay adigu 3 lambar ayaa godka galay si wali hal lambar ayaad ku leedahay wala codkaagi baa go'go'ayeen 4 lambar ayaa godka galay si wali hal ayaad ku leedahay laba lambar baan qabsaday lambarka 6 lambar 6daadi lambar sidaas ayaad ku qabsatay hal lambar oo kamid ah ayaa heshay see lambarka nasiibka ayaa ku saacidi waayay oo haddii lambarkaasi kugu dhici lahaa waxaad ugu yeelan lahayd lacag dhan $5 waan ka xumahay mar kale waan jecelahay inaad nasiibkaaga soo tijaabiso aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad noola soo xidhiidhay aadna walaalood mahadsantahay waa tahay daawadayaal halkaas ayaan kaga gudbi doonaa daawadaha koowaad imika waxaa ku jira daawadihii labaad ayaa si toosa khadka usoo galay hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal waxaad si toosa ugu jirtaa barnaamijka hana nasiibkaaga walaal intaana dooran number 7 shuruudo ayaa jira ugu horeyn halka aad ka soo hadlaysa iyo magacaaga magacaygu Cabdiqani Axmed aan ka soo hadlay Hargeysa xaafadda Jidheer Cabdiqanow intaanad nasiibada qabsan 4 shuruudood ayaa ka horeeya barnaamijka waxay kala yihiin inaad quraan burto in ka soo qofto mar ahayn inaad sheeko gaaban nooga sheekayso inaad hees codkaaga ku luuqayso iyo inaad gabay ku luuqayso
inaad hees ku luuqayso inaad gabay ku luuqayso inaad sheeko gaaban nala wadaagto iyo inkastoo aanad qof dumar ahayn buraanbur weeye shuruudda afraad kaad buuxin karayso marka hal shuruud buu loo finaya mise afarta waa loo finaya maya hal mid ka mid a ka adiga kuu fudud walaalo codkaaga kor u yara qaad fadlan inkastoo codkaaga aad u gaabnaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay se nasiibkan ku gudbin doonaa hadda 1 ilaa 6 iyo 30 ayaad 6 lambar oo ka mid a qabsan doontaa martida waan doorto 6 lambar baan dooranayaa 6 lambar baad dooranaysaa walaal 1 ilaa 2 ilaa 7 2 ilaa 7 waa 2 3 4 5 6 7 waxaa jira lambar 7 oo ah lambarka Janiska isla markaana aad lacag badan ku heli doonto marka lambarka wada haysanaysaa anigana imkan wadna la wadaagaysaa lambar 7 ayaa jira oo ah lambarka Janiska lambarka aad lacagta badan ku heli doonto lambar 5 lambarka Janiska waa lambar 5 qalbigaad ku haysanaysaa se 6daadi lambar ee hore toos ayay kugu bilaabeen حاضر hal lambar ayaa godka ku dhacay se 6daadi lambar mid ka mid a maaha lambarkii labaad ayaa galay se waxuu ku meel yahay labada lambar lambarkii saddexaad ayaa galay se lambarka ayaad adigu yeelatay lambarkii afraad lambarkii shanaad waxa ku hadhay waa lambarkii 6aad iyo lambarkii Janiska lambarka Janiska ma dooranaya mayo lambar 5 wadigii doortay lambarkii 7aad ugu dambeeyay buu ahaa waa ka xumahay laba lambar oo qura ayaa ku soo baxay lambarka Janiska hadduu ka raaci lahaa $10 oo lacag ah ayaad caawa halkan kala dhaqaaq lahayd aad baan kaaga mahad celinayaa sida nasiibkaaga u tijaabisay daawadayaal labada qof haddana halkaa kaga soo gudbo barnaamijku inoo sii socon doonaa insha Allah waxaan ka codsanayaa dadka daawanaya barnaamijka inay share gareeyaan isla markaana asxaabtooda la wadaagaan daawadii saddexaad ayaa si toos ah imika qadka ugu jira assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal waxaad si toos ah ugu jirtaa barnaamijka hana nasiibkaaga oo ah barnaamij baqtiya nasiiba inako qadka ku go'ay way Faisal inako Faisal uu soo dhawow inako qadka ku walaal wandaway soo dhawow afartii shuruudood barnaamijka wad la socoto khadka ka go'ay keebad buuxinaysaa keebad buuxinaysaa shuruudii nasiibka iyo gaarka aniga labadeena walaal markii hore way tagtay se dib ayaad ugu soo noqotay barnaamijka dib ayaad imika u bilaabanaysaa haye waa sheekada ka sheekeynaya iga dhageysta haye yasmaha waa sheekada ma bilaawa ha sheekada waxay ka dhaxdhacday nin iyo xaaskiisa ka dhaxdhacday walaal haye kadib ninkii baa gabadhii namar ku dhuftay gabadha waxay go'aansatay inay ninkii ka aarsato namarkii dabeetana walaalo gabadhii in badan bay ninka doonaysay Janis ku raadinaysa ma garanaysaa haye marka walaalo Janis uu suurtagal waayay ninku markuu siraada gabadha la sheekaysada waxay ka horkeentay kelmadii ahayd namarkii aad ugu dhufatay baan way xasuusanahay ma garanaysaa sax tusaale ahaan imika markuu siraadna inankeena hebel waa imsi jir waxay tiraahdaa namarka aad ugu dhufatay barigaas wuxuu jiray 3 jir haye ninkii walaalo sidii urta hooshii ku waday ma garanaysaa waa garteen maalintii dambu gabadhiisii ku yiri walaalo waa ka xumahay daawadayaal daawadaha khadka ayaa ka go'ay barnaamijku inkastoo uu ahaa markiisii labaad oo barnaamijka dib ugu soo noqday markii hore uu ahaa ma guuleystay
barnaamijku daawadayaal waxaad si toos ah ugala socotaan page-ka aan ku leenahay Facebook ee Hohad Cable intiina daawanaysa daawadayaal mar koobaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanaynaa inaad share gareysaan si ay u gaadho asxaabtiina barnaamijku wali daawadayaal uu inoo sii socon doonaa waynan caawin doonaa wixii guuleysta halkan ayaynu ka sheegi doonaa lacagtoodana isla goobtan isla waqtigan ayaa halkan looga diri doonaa barnaamijku daawadayaal waa barnaamijkeennii waxaanad si live ugala socotaan page-ka Hohad Cable iyo bartaan YouTube-ka ku leenahay qadar yar oo nasasho kadib waynu isku soo laabanaynaa يا رب صل على خير الوجود ومن سدى النبي ينوال أملاك والوصال سد النبي نوى أملك وأصل سدى النبي ينوال أملاك والوصال وأنت ما سدوا يجي بغيته بكم ينال المنى وعندما حبسا يا رب صل على خير الوجود ومن سدى النبي ينوال أملاك والوصال سد النبي نوى أملك وأصل سدى النبي ينوال أملاك والوصال وكيف لا والرسول الله يخيبته من نوره لظلام الشرك قدم صال يا رب صل على خير الوجود ومن سدى النبي ينوال أملاك والوصال سد النبي نوى أملك وأصل سدى النبي ينوال أملاك والوصال رب صل على خير الوجود ومن سدى النبي ينوال أمرك والوصال سد النبي نوى أملك وأصل سدى النبي ينوال أمرك والوصال لك الشفاعة فيه يوم الميعاد وقلبنا مجرد الخطبة تمصال يا رب صل على خير الوجود ومن سدى النبي ينوال أمرك والوصال سد النبي نوى أملك وأصل سدى النبي ينوال أمرك والوصال يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا عدتي daawadayaal waa mar kale isu soo noqod wanaagsan qadar nasashaha kadib barnaamijkeennii daawadihii kale ayaa khadka ku jira halo assalaamu calaykum السلام ورحمة walaal waxaad si live ugu jirtaa barnaamijka ahna nasiibkaaga magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso walaal magacaygu waa maxamuud cali waxaan kasoo warramayaa soo hadlayaa magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool maxamuudow walaal soo dhawow barnaamijku waa barnaamij bakhtiyaa nasiib ah intaanan nasiibka ku gudbin 4 shuruudood ayaa ka horeeya 4 shuruudood inaad gabaydo inaad heesto inaad sheeko gaaban ka sheekayso iyo inaad buraanburto inkastoo aanad qof dumar ahayn walaal gabayr baan ka shaaqsiinayaa waad inoogu luqeynaysaa laakiin waa saxde way waxaan kugu luqay gabaygii saa array ahaayeen markuba cibdada foosha way xana ku wareeraane hay daray in xaylka kale mooge inta nin dilba xaguune dugsaday dhaqayadeed maaliye
رشاد سكتا حاجة دورة انت ساوي شو توقعين aad iyo aad u mahadsan tahay daawade waxaan ku gudbin doonaa nasiibka nambaradaad qabsan doontaa waxay kala yihiin 1 ilaa 6 iyo 30 toddoba ka mid ah ayaad qabsan doontaa 6 ka mid ah computerka ayaa kuu qoraya hal ka midna labadeena ayaa isla ogaan doonaa walaal waxaan qabsaday 10 ilaa 6 iyo 10 walaal 10 ilaa 5 iyo 10 ayay noqonayaan ها 10 koob iyo 10 laba iyo 10 saddex iyo 10 afar iyo 10 5 iyo 10 waxaa hadhay lambarkii janiska oo ah lambarkii toddobaad وسديد ولا سديد lambar 8 waad inoo haynaysaa inta kale laakiin way ku bilaamatay daawadayaal waxaan mar kale idinka codsanaynaa inaad barnaamijka share garaysaan lixdaadii lambar hal ka mida lixdii god hal lambar ayaa ku dhacay se lambaradaadii waxba kuma lihid laba lambar ayuu marayaa se weli waxba kuma lihid daawade saddex lambar afar lambar se lambarka afraad adiga ayaa iska leh shan lambar lix lambar waxaa hadhay waa lambarkii janiska lambarka janisku $5 ayuu kula maagan yahay haddii aad ku guulaysato lambar 8 muu noqon 5 iyo 30 ayuu noqday aad iyo aad baad u mahadsan tahay waan jecelnahay mar kale inaad nasiibkaaga soo tijaabiso maxamed aad iyo aad u mahadsan daawadayaal qofkaasina halkaas ayaan kaga gudbay weli ma hayo cid caawa guulaysatay barnaamijku daawadayaal waa barnaamij waqtiga nasiib ah isla markaana caawa halkan waxaad kala tegi doontaan xaqal ciid haddii aad nasiib wanaagsan tihiin waxaan idinka codsanaynaa lambarka whatsappka ku qoran inaad naga soo garacdaan lambarka whatsappka ku qoran inaad naga soo garacdaan inta dalka joogto weliba waxaan ka codsanaynaa nambarku inaanu ahayn nambar toos loo soo wacayo uu yahay nambar whatsapp ah daawadaha khadka ku jira iminka ayaan u geli doonaa hallo assalaamu calaykum walaal iska warrama وعليكم السلام walaal aad baan u wanaagsanay waxaad toos ugu jirtaa barnaamijka ana nasiibkaaga walaal barnaamijka toos baan ugu jiraa intaasoon ma garanaysaa waxyaabihii programka badankiisa yara dhaafay aan dadka la socdo ma garanaysa dadkan ka qayb qaadanayo ma toos la socdo inta hore barnaamijku yara dhaafay sax marka barnaamijka ana sharaxaadiisa ku siinay ana sharaxaadiisa waxaan doonayaa inaan sheeko yar oo ka sheekeeyo walaal intaad sheekada ka sheekeen magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso magaalada Hargeysa ka soo hadlaya magacayguna waa Yuusuf Cabdixamed yuusufow afarta shuruudo sheekada dooratay yaa walaal sheekadan doortay hadda gabaygana waan hayaa hadda may adigu ka jeceshay walaal adigu ka jeceshay inoo bilow waayay walaal waxaan ka yara sheekeynayaa sheeko bari dhex martay nin iyo gabadhiisii waa sax nin waxa reer miyiga heedo koonfurta magaalada Hargeysa ka dhacday oo ninba gabadhiisii nin iyo gabadhiisii waxaana reer miyiga ahaayeen maalmaha kamid ah ayaa ninkuna nin aad u yara kulul buu haayo oo iyo aadgii neefqalba haye riba luntay sax kadib markay luntay baa wax dhacday ninkiiba wuxuu yiri nahdlay ridii doono de waa inaad soo heshaa guriga soo gali maysid haddii aad ridii wadin oo saddexdaad dalaaqood baad ma garanaysaa yaad gacanta ku qaadanaysaa si aanad soo ridii haya kadib gabadhii siday doontaba way dadaashay way soo heshay ridii kadib gabal dhici iyadoo ridan ariga xoolaana waxa ku jira ridda dad galo xoolaha dabagalo qofka dabagala riya inta badan u badan yihiin qofka way dabagalaan moogtay haye ridii iyadoo ma socoto asagoo kan fadhiyo uusan qali maayo markaas la ridii ma wada wata tilmaya haye saddexdiba waa ku furaay soo gali haye kawdi ridina way wata marka waa bilaa ku dhacday ridii waan wadaabay waa tay kawdi haye
asna wuxuu ugu jawaabay nin xadaari oo marka taageer agto waa inuu ka fadhiisto buudha ku dul martay ka fadhiisto ka fadhiisto buudha ku dul martay saddexdii dalqaa ku dul marana ka fadhiiso iya sheekadu saasay haydo saasay ku dhacday aad baad u mahadsan tahay nasiibka ayaan ku gudbin doonaa lambarada la qabsanayo walaal waa 1 ilaa 6 iyo 30 toddoba kamida ayaad qabsan doontaa 6 kamida computerka ayaa ku qoraya hal kamidana waa halka number ee Chinese-ka aad lacagta badan ku helayso waxaanu gelayaa halka ay ku qoran tahay B marka 6da lambar ee aad qabsanayso ugu horeeya waayo walaal waxaan qabsanayaa waxaan qabsanayaa 22 ilaa 30 22 23 24 25 26 27 saa waxa ku dhan 27 ilaa 22 ilaa 27 lixdii lambar waxa igu ka hadhay halkii lambar ee Chinese-ka aan kula lacagta ayaad ku helaysaa صح marka 6 ka lambar hal lambar oo kale aad ka dooranaysaa todobada lambar baan 6 door mid ka doortaa may imika waxa dooratay 6 lambar hal lambar oo toddobaad ayaa ku harsan صح marka lambarka toddobaad lambarka de ma lambarkiisa loo ogaan inaan doorto marka anigu kii toddobaad waaye toddobada midna kuma jira soo maaha may uu ku jiri karaa lambarku waa lambar dibadda ka imanaya uu ku jiri karaa toddobadan 6 lambar aad dooratay 1 ilaa 6 soddon lambar kamid ah baad dooranaysaa bisi keeru qabanayna tiraka la dhiban baan doornaa 25 mar dooranayna 25 maskaxdaad si wacan ugu haynaysaa laakiin 6 lambar ee kale computerka ayaa ku qoray 6 lambar waay imkana toos bay kugu bilaabmatay lambarkii koobaad baa godka galay lambarkii labaadna sidaas ugu galaysa wuxuu kuma lihid lambarkii saddexaad lambarkii afraad lambarkii shanaad lambarkii lixaad ayaad yeelatay si lambarkii Chinese-ka wali ku dhiman ee toddobaad waa ka xumahay lambarkii 25 buu ahaa laakiin 32 buu ka noqday hal lambar oo kaliya ay ku guuleysatay 6dii lambar ama 7dii lambar aad dooratay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad noo soo qaracday waxaan rajeynayaa mar kale inaad nasiibkaaga tijaabin doonto waay oo waqti nasiibkayga waxa kuma helin aad baan uga xumay waay waa tahay daawadayaal dad badan baan soo weydiinaya barnaamijka halka la idin kala soo xiriiraya barnaamijka waxna lagala soo xiriiraya lambarka WhatsApp-ka ee ku qoran shaashada lambarka dad badan ayaa yiri ma fahmayno waxa weeye 9228415 oo Somtel ah hadii aad joogto dalka gudihiisa waa tahay daawadaha xiga ayaa si toos ah khadka ugu jira isna balaynu la tijaabina nasiibkiisa Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam walaal soo dhawow. Walaal soo warama. Walaal aad baan u wanaagsan adigu sidaa tahay. Waxaan barnaamijkan la socday intan dhammaan kala socday marka waxaan doonayaa inaan ku soo biiro. Walaal soo dhawow. Waxaan qabsanayaa gabay baan qabsanayaa. Soo dhawow marka hore magacaaga yaalkad ka soo hadlaysaa. Maxamed Ciid baa la yiraahdaa Hargeysa ka soo hadlaya. Maxamed Siciidow gabayga waad ku luqeynaysaa yaa walaal gabayga waad ku luqeynaysaa maxaan qabsanayaa gabayga waad ku luqeynaysaa ma maqlaysaa waan ku maqlayaa hadda gabayga inagu luqeey gabaygan mariya waayahay gabaygu gabay badan maaha waa afriyo gaaban marka nin misleysta oo dadka hadiya jeer ka qosiyo dadka ayaa gabayga ayaa tiri jiray waa asxaabnahay ya waxa weeyaan
hoyaalayey 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 kuwa gabayga toostoosiya maba yaqaana kuwa gabayga toostoosiya maba yaqaana iga waloon haddaan gabay yaqaan kalana gooyeene iga waloon haddaan gabay yaqaan kalaba gooyeene waka aad baad u mahadsan tahay nasiibka ayaan u gudbi doonaa kolley lambaradaad qabsan doontaa waa 1 ilaa 6 iyo 30 toddoba ka mid ah ayaad qabsan doontaa 1 ilaa 2 iyo 30 haa 1 ilaa 6 iyo 30 1 ilaa 6 iyo 30 waaya toddoba 1 ilaa 6 iyo 30 haa toddoba number oo ka mid ah ayaad qabsan doontaa 1 ilaa 6 sagaasan toddoba qabsadaa haa waayahay waxaan qabsaday 11 ilaa 17 11 12 13 14 15 may walaal mashiinku wuu ku dhacay 11 12 13 14 15 16 baan marayaa lambaradii aad qabsatay 6 lambar oo kamid ah ayaa ka dhan yaa walaalo lambaradii aad qabsatay 6dii lambar way ka dhan yihiin waxay ku dhiman waa lambar 7 oo ah lambarka challenge-ka isla markaana aad ku heli doonto lacag aad u tiro badan lambar fa yahay Soomaa lambarkii 7 haa waan gartay waxaan qabsaday lambar 7 naftiisa lambar 7 maanka inoogu hay waa lambarka lacagta ku helayso hadii uu lambarka aduu ku dhaco xarafka B ku qorantay waa hagaag lambarkii koowaad ayaa hadda si toos ah godka ugu dhacay daawadayaal mar kale waxaan idin xasuusinayaa intuu daawadahaasi khadka ku jiro uu wareegayo nasiibkiisu in barnaamijka laga soo wici karo lambarka WhatsApp-ka ah ee ku qoran shaashada isagoo WhatsApp ahaana dadka qaar ayaa soo garaacaya isagoo oo caadi kaarkii caadiga ah laakiin waxaan ka codsanayaa inay soo garaacaan isagoo oo WhatsApp save garayso kadib u soo garaac qaab WhatsApp ahaana maxamedow lambarkii 6dii lambar ee hore hal lambar ayaad ku leedahay se lambarkii 7aad ee chance-ka ahaa ayaa imika 11 isku bedelay oo 7 hadii uu ku noqon lahaa waxaad caawiga la tagi lahayd lacag dhan $5 se waan ka xumahay waxaan ku leeyahay mar kale iyo guul wacan nasiibkaaga mar dambe wad tijaabin doontaa insha Allah igu celi 7dii lambar hal lambar oo kamid ah ayaad heshay halka lambar hadii uu ku raaci lahaa haa hadii uu ku raaci lahaa lambarka chance-ku hadii uu ku raaci lahaa caaw waxaad la xaroon lahayd lacag dhan $5 se may suurta galin waxaan ku leeyahay nasiib wacan waa tahay daawadayaal mar kale waxaan baraarujinayaa in lambarka shaashada ku qoran ay naga soo wici karo daawado kale ayaa si leef khadka ugu jira hello assalaamu calaykum walaal soo dhawow waxaad si toos ah ugu jirtaa barnaamijka hana nasiibkaaga halkaad ka soo hadlaysa iyo magacaaga walaal waa maadsantahay magacaygu waa Xuseen Boqadir Maltan ka soo hadlaya Malta walaal soo dhawow barnaamijka waa barnaamij waqtiya nasiiba isla markaana aynu ku caawinayno lacagna adiga loo hoyin doonto hadii uu nasiibkaagu wanaagsan yahay afar shuruudood ayaa ka horeeya inta nasiibka lagu gudbin inaad gabaydo inaad heesto inaad buraanburto iyo inaad sheeko gaaban ka sheekayso waniyahow sheekadaas aan ka dooran lahaa sheeko ahlu marqaan ah way inoo bilow waa labadii saaxiib ah hadda ka horniyahow marqaamay ma garat waa sax mid kamid baa gurigiisa lagu marqaamay aduu markay
saqri dhaxay tahay baa roob baa yidhi haye marka kii kale yidhi niyahow hoyan kari maysid gurigayga iska seexo caawa oo dadka iska ma garan haye codkaagana kor nagu yara qaad kii kale yidhi niyahow ma hoyan kartid bal caawa xaggana iska yara seexo oo berita iska bax waan gartay kii kale yidhi niyahow waa tahay ma hoyan karo niyo roob badan baa da-aye bal gurigayga aan busta kasoo qabsado waan ku soo laabane ma garan waa gartay ninkii maba hooyanay gurigiisa intuu tagay buu bustihii soo qaatay isagoo qoyan buu dib usoo laabatay bustii buu soo qaatay dib buu usoo laabtay gurigii saaxiibkiibu dib ugu soo laabtay gurigiisi maba teginba ninkii waan gartay markaasuu ku yidhi wallahi nin beenta ma roob badan baa da-aya niyahow gurigaygii waa kasoo laabtay cawradaan kula dhacayaa ma garan waa sax taasina waxay ahayd saaxiib sheeko ahlu matqaana ma garan waa gartay marka wakaas bal kulley barnaamijkan waa habeenkii ugu horreysay bal waan eegaya nasiibkayga wuxuu noqday aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa barnaamijka waxaad qabsan doontaa 6-7 lambar oo ka mida 1 ilaa 6 iyo 30 ku dhex jira 6 ka mida computerka ayaa kuu qori doona hal lambarna maanka ayaad ku haysanaysaa waa numberka janiska isla markaana aad ku heli doonto lacag ka badan tii lambarada kale barnaamijku markaa lambarka ugu dambeeya wuxuu ku dhici doonaa xarafka b halkay ku qoran tahay markaa 6 lambar oo ka mida aan kuu qoro okay 6 lambar baan qabsataa soo ma haa waxaan qabsaday 22 28 18 18 16 16 32 32 11 iyo lambar 2 waa tahay 6 lambar ayaa sidaa ku dhan lambarka janiska ah ee 7 waa lambar 8 lambar 8 xafidsanow laakiin way ku bilaamatay hal lambar ayaa godka ku dhacay se 6 lambar waxbay nooguma jiraan laba lambar 3 4 5 ka xumahay 6 lambar waxba kuma dhicin godka lambar aad leedahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa sidaad nasiibkaaga u tijaabisay mar kale nasiib wacan baan ku leeyahay waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan daawadaha kadib waxaan dib idin xasuusinayaa inaad naga soo wara garaaci kartaan nambarka ku qoran shaashada oo ah number ay leedahay shirkadda Somtel waxaa hadda daawado kale ayaa khadka soo galay isaga iyo nasiibkiisana aynu eegno asalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhawow waxaa si toos ugu jirtaa barnaamijka ana nasiibkaaga waan ku dhow walaale magacaygu waa cabdiqani waxaan kasoo hadlay magaalada Hargeysa cabdiqani soo dhawow barnaamijka waa daawanaysa baan filayaa shuruudaha ها ولا وين داوني waaye afartii shuruud waxaan kaga qayb qaadanayaa hees waa sax masburanaya anka hore waa si wanaagsan tugtugley dhuleer maraysa sidii tugtugley dhuleer maraysa
dhawaaqayga loo dhegaystahay saanu jirkoye jacaylkaage oka inaad noo sii wadaanu jeclaan lahayn aad iyo aad waad mahadsan tahay allah codka ku barakeeyo saaxiib waxaynu gudbi doonaa bakhtiyaa nasiibkii 36 lambar oo ka bilaabmaya 1 ilaa 36 ayaad qabsan doontaa 7 nambar oo ka mid ah waxaan qabsay 7 ilaa 11 number 7 8 7 ilaa number 7 way ku dhacday computer kugu qoray 7 14 baan kugu xisinayaa sideed sagaal toban koob iyo toban labiyo toban 7 ilaa 12 ayay 6 lambar ku eg tahay lambarka 7aad ee janiska oo ah lambar aad lacagta ku heli doonto keebaynu ka dhignaa cabdiqanow bismillaahi raxmaani raxiim lambar 10 wala lambar 10 number 10 hayso maanka ku hayso 6 lambar oo ku bilaabay kubadii ugu horeysay ayaa ku dhacday tii labaadna waa ay ku dhacday kubadii saddexaad ayaa ku dhacday si hal kubad ayaad ku leedahay adigu kubadii afraad ayaa ku dhacday 2 kubadood ayaad ku leedahay cabdiqano caawa waxaan u maleynayaa xaqil ciidka inaad adigu 5 kubadood ayaad 2 kubadood ku leedahay 6 ayaad 2 ku leedahay nambarkii janiska ahaa ayaa ku dhiman oo number 10 ahaa muxuu noqon doonaa wuxuu noqday 1 aad iyo aad baan uga xumahay numberka janiska hadduu kugu darsami lahaa waxaad caawa la hooyan lahayd lacag dhan $10 aad iyo aad ayaan uga xumahay mar kalena si fiican baan kula yaab cabdiqani insha Allah waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan oo mar kale iyo barnaamijkaana nasiibkaaga barnaamijku wuxuu si leef uga socdaa page-ka Hohad Cable waxaad naga soo wici kartaan nambarka shaashada ku qoran daawado kale ayaa si toos ah khadka ugu jira Hello assalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhawow waxaad si toos ah ugu jirtaa barnaamijkaana nasiibkaaga walaal magacaaga marka hore iyo halkaad ka soo hadlayso اختري ولا لسود أو برنامج كأفر شروط يا كهرية إن النصيب كي كدبتو إن برامبورتو إن هستو إن جابيدو إن شيكا جابن كشيكا يسو ولا القروحي نمبرسك وحكهرية إن جابن نلو ذاكتو إن هس كل قيسو إن شيكا يسو إن برامبورتو إنت كتبا يدو كدبتو تنبرة نصيبك nasiibka numberka waxa ka horeeya 4 shuruudood afar shuruudood ama 4 sharti ha waxay kala yihiin inaad gabaydo kow inaad gabay ku luqayso gabay inaad gabay ku luqayso gabay iyo qodobka labaad oo ah inaad heesto qodobka saddexaad oo ah inaad buraanburto iyo qodobka afraad oo ah inaad sheekayso
walaal codkaaga kor yara qaad ka ugu horeeya in ugu celi walaa ka ugu horeeya waa hees gabay sheeko iyo buraanbur kaad jeceshahay afartaa gabay 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 aad jeceshahay gabay baan qabsadaa waa tahay waad ku luuqeynaysaa laakiin gabayga gabay gabay wadani aadee kaad jeceshahay walaal laakiin waxaa shardi ah inaad ku luuqayso gabay ina haye ina qoriga si way ismaylashii kama qamaadeen adigaaba qalab raadinayo quusay faransiisi adigaaba qalab raadinayo quusay faransiis aad iyo aad baad u mahadsan tahay nasiibka ayaan ku gudbin doonaa lambaradaad qabsan doontaa waa 1 ilaa 6 iyo 30 7 lambar oo kamid ah ayaad qabsan doontaa hay labta kamida 7 lambar oo kamid ah 1 ilaa 6 iyo 30 ilaa 6 iyo 30 todoba kamida haa walaalo 10 number 10 10 waa tahay lambar 8 8 6 iyo 10 6 iyo 10 12 miya waaye 12 afar number baan ku hayaa iyo 8 iyo 10 8 iyo 10 22 lix kamida way ka dhan yihiin oo ah lixdu computerku qorayay waxa kugu dhiman waa lambarkii Janiska oo ah lambarkii 7 lix lambar waan hayaa waxa dhiman lambarkii Janiska oo lambaraad lacag badan ku heli doonto waa lambarka 7 24 maskaxdaad ku haysan doontaa waa lambarka lacag badan ku heli doonto afar iyo labaatan maskaxdaad ku haysan doontaa lixdii hore waxa ku qoray computerka se lambarka 24aad ee dooratay haddii uu ku dhaco xarafka B waxaad leedahay lacag ka badan lacagta nambarada kale ku siin doonaan si toos ah ayuu kugu bilaabmay nambarkii koobaad ayaa godka ku dhacay saddex number baa ku dhacay se lixdeeni lambar mid kamida kuma jiro afar number shan numberkii Janiska 24aad baa ku hadhay waan ka xumahay hal lambar ayaa kugu dhacay se Janisku haddii uu ku raaci lahaa waxaad heli lahayd lacag mar kale nasiib wacan ayaan kula yeelaa lambarka 24aad baan lambarka la bedelana Soomaha may wala lambarka 24aad waxaan ku yiri wuxuu noqon lahaa numberka aad ku heli lahayd lacag aad u badan isla markaana laakiin may dhicin manay suurto galin halkaas ayaan kaaga gudbayaa nasiib wacan baan mar kale ku leeyahay aad iyo aadna ku salaamaya haye insha Allah waa tahay daawadayaal mar kale soo dhawaada barnaamijku waa barnaamijkeeni mar kale waxaa khadka ku jira daawado kale hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته walaal soo dhawow halkaad ka soo hadlaysiya magacaaga marka hore walaal waan dhowahay waxaan joogaa Dobley aan joogaa gobada hoose Soomaaliya magacaygu waa Suxufi
suxufi walaal magacaaga magacaygu waa suxufi waxaan joogaa jubbada hoose dhobley magacaaga waa suxufi weeye waayahay walaalo soo dhawow barnaamijku waa barnaamijkii hana nasiibkaaga ayaad si toos ugu jirtaa 4 shuruudood ayaa ka horeeya inaad barnaamijka u gudubto waqtiga nasiibka 4 shuruudood waxay kala yihiin inaad heesto inaad gabaydo inaad sheeko gaaban ka sheekayso iyo inaad buraanburto inkastoo aanad qof dumar ahayn adigu may maqlaysaa haa walaal may maqlaysaa waan ku maqlaa aad baan ku maqlaa 4 shuruudood teebaad inoo buuxinaysaa waxaan rabaa inaan la qaybsano dhegeystayaasha sheekooyin sheekooyin hal sheeko unbaa nagaga filan hal sheeko un nagu dhufo hal sheeko un baan ka sheekeynaya okay waxaa la yidhaahdee nin yacni lagu wereeriyay inuu waalan yahay oo dadka ay aad ugu cambaaraynayeen inuu waalan yahay uu ahaa haye marka adigu markii ninkii lagu wereeriyay inuu waalan yahay yaa isagana wuxuu ku dooday inuusan waalnayn waa gartay marka muxuu ahaaye marka waxaa la yidhaahdaa si aan caddayn aan kaaga helna inaadan waalnayn waa inaad na tujisaa salaad maqrib inaad tujisaa dadka marka muxuu ahaaye markuu salaadii maqrib dadkii uu geliyey uu xirtay uu faatixada ku furfurtay rakcadda hore uu tukaday tirood uu tukaday ee dadka intuu kusoo jeesaday wuxuu dhahay waryaada hoy adhow waad inkiri doontiin laba ma idin tujiyey xabada ay dhiman ogaada labadin idin tujiyey xabad baa idin dhiman dadkii laba markuu tujiyo tii saddex intuu kusoo jeestuu dhahay laba ma idin tujiyey xabada ay dhiman adhow eegan keenana isagoo markaa tii saddexaad aan gaadhina salaadii ku jira marka sheeko waa taas marka sheekadaas aan ka sheekeeyey wixii kale aan ugu gudbin marka aad baad u mahadsan tahay anna waxaan ku qasbanahay marka inaan nasiibka ku gudbiyo lambarada 1 ilaa 6 iyo 30 waxaad qaybsan doontaa 7 nambar oo kamid ah 1 ilaa 6 iyo 30 miya haa walaal 1 ilaa 6 iyo 30 waana 7 lambar laga qabsanayaa 7 nambar haa waxaan qabsanayaa lambarka labaad lambarka sagaalaad iyo lambarka 12aad sagaalaad 12aad saddex nambar baan ku hayaa labaad sagaalaad 12aad midka ku xiga waxaa weeye 15 iyo 19 waa 15 iyo 19 hal lambar baa laba lambar baa dhiman 23 nambarka ugu dambeeya waxaan ka dhigayaa 29 qalbiga ayaad ku haysanaysaa waa lambarkaad ku heli doonto lacag aad u badan lambarka ugu dambeeya 29 waxaad ku haysanaysaa qalbiga 6 lambar se waan ku bilaabay way dhan tahay mar labaad iyo mar saddexaad intuu daawadahaasi khadka ku jiro waxaan ka codsanayaa bulshada inay barnaamijka sheer gareeyaan si haddii iyagu nasiibku u saamixi waayo inay guulaystaan ay asxaabtooda la wadaagaan dhanka kale nambarka laga soo wacaya waa isaga oo WhatsApp ahaana dadka qaar ayaa soo garaacaya isaga oo nambar caadi ah waliba dadka jooga dalka marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa barnaamijka inaad ka soo garacdaan nambarka WhatsApp-ka ee ku qoran shaashada suxufi aynu isku soo laabano inta ka bacdi waxaan ku hayaa 6 lambar hal nambar oo kamid ah kuguma dhicin se lambarkii Janiska ahaa un baa haray oo ahaa number 29 ama 29
numberkaasina wuxuu noqday 28 marka computerka wuxuu kugu soo qoray maad guuleysan mar kale nasiib wacan aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa gobolada aad joogtana waad nagu salaami doontaa insha Allah waa tahay daawadayaal barnaamijku gabagaba ayuu ku dhow yahay kolley waxaanu khadka soo galnay 9kii iminkana waa 10kii waxaan chance sii siin doonaa 2 qof ama 3 qof oo kale aan nasiibkooda la eegi doonaa inta ka bacdi in ismaaca salaameyn doonaa waxaanan dib iskugu soo noqon doonaa maalinka ay salaasadu soo galayso habeenka ay salaasadu soo galayso haddii Allah awood la ogolaado marka waxaan chance siin doonaa 2 qof oo kale 2 qof oo kale ayaan chance siin doonaa barnaamijka waxa lagu soo hagaagayaa page-kan Hoad Cable iyo bartaanu YouTube ku leenahay isla Hoad Cable laakiin waxaanu live kaga jirnaa Facebook oo kaliya daawadayaal waxaan chance siin doonaa 2 qof mid kamid ayaa khadka ku jira Hello assalamu alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso waan ku maqlayaa walaal magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso burxan ka soo hadlaya magacaaga walaalo magaalada burxan ka soo hadlaya walaal magaalada burxan ka soo hadlaya walaal walaalo waxa tahay 2 qof oo chance magacaagu waa Axmed maxamed oo burca ka soo hadlaya Axmed oo barnaamijka waa daawanaysa waan filayaa walaal barnaamijku 4 shuruudood ayaa ka horeeya in nasiibka lagu gudbiyo 4 shuruudood haddii aad barnaamijka daawanaysay keebad buuxinaysaa walaal waxaan buuxinayaa hees waa tahay inoo wad waxay ku bilaabaysaa sidan sida waxya بولها إسوراف شيء أريع البولها إسوراف شيء مركو كاكو waan ka xumahay waan ka xumahay qof xaraabeysanaya ayuu ahaa labadii qof ee aan chance-ka siinayay waa meeshoodii inta kadibna barnaamijka waynu soo gabagabayn doonaa haddii Allah awood la ogolaado waa tahay daawadayaal waxaa mar labaad idin xasuusinayaa barnaamijku inaad ka soo wici kartaan nambarka shaashada ku qoran ee WhatsApp-ka ah daawadayaal waxaa mar kale idin xasuusinayaa barnaamijku inuu soo geli doono labada habeen ee Jimcaha iyo Salaasada labada habeen ayaanu si toos ah u soo geli doonaa hawada waxaynan kala calfan doonaa wixii aynu kala helno waa tahay daawadayaal daawadaha ugu dambeeya waqtiga gabaabsiga dartii aan barnaamijka ku soo gabagabeynayo ayaan hadda si toos ah uga qaban doonaa وارهاد maxaa Soomaaliw Assalaamu alaykum walaal waxaad ku jirtaa barnaamijka nasiibkaaga Hello Assalaamu alaykum Wa alaykum assalam walaal soo dhawow waxaad ku jirtaa barnaamijka hana nasiibkaaga walaal waan dhawahay ma sha Allah halkaad ka soo hadlaysay magacaaga walaal waxaan ka soo hadlay magaalada Burca magacaagana waa Axmed Maxamed Axmedow barnaamijka la socotay baan maleynayaa walaal waayahay walaalo waxaad samaysaa teebad inoo buuxinaysaa 4 shuruudood
walaal waxaan inoo bixinayaa hees baan inoo bixinayaa insha allah waayo noo bilow walaal sida waxyaha jiirka wadnaha iyo beerka albowlaha isdwaraabshay kaaga waraaqshay awadeeca ku gaadhay ayaa kaaga wareegay walla kaaga dhaqaaqay walaal intaasna kusoo gabagabeeyey aad baad u mahadsan tahay barnaamijku waxaan ku gudbin doonaa nambarada nasiibka 1 ilaa 6 30 ayaa 7 ka mid ah qabsan doontaa marka ay noo bilow walaal waxaan qabsanayaa walaal 30 ilaa 6 baan qabsanayaa walaal 30 ilaa 6 walaal 35 lambarka 6 wuxuu noqon doonaa lambarka Janiska ah ee ku heli doonto lacag badan marka nambarka waxaad ku haysan doontaa maanka inta kale se waan ku bilaabay ayo way walaal hal kubad ayaa ku dhacday godka صح 2 kubadood ayaa ku dhacay صح 3 kubadood 4 waa ku maqlay walaal nambarkii 5aad ayaad yeelatay lambar 6 baa hadhay 2 lambar baad yeelatay lambarka Janiska oo ahaa lambar 6 haddii aad hesho waxaad leedahay lacag dhan $10 si maad helin lambarka wuxuu noqday lambar 20 aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa si nasiibkaaga u tijaabisay waxaana tahay qofkii ugu dambeeyay barnaamijka lagu soo gabagabeynayay aad iyo aad baad mahadsantahay walaal ayo way walaal waa tahay daawadayaal waa mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee ahna nasiibkaaga caawa cid guulaysatay man arag se waan jeclaan lahaa inaad guulaysataan oo halkan aad kala carowdaan lacago intaa kabacdi barnaamijku oo gabagaba ah dartii waxaan u mahad celinayaa farsamo yaqaan aadan maxamed cali dhanka kale barnaamijka aan idin soo xasuusinayo wuxuu si toos ah hawada u soo geli doonaa 2 habeen ee Jimcaha iyo Salaasada tan iyo intaan ku kulmi doono habeenka soo socda ee Salaasada hadduu Allah awood la ogolaado waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh سنديد الزمان وصل يا رب صل على خير الوجود ومن